habeenimo axad ah 17 Sebtembar sanadkii 2017 abaar 5 saac bar habeenimo xilliga geeska Afrika waxaa inta badan magaalada Muqdisho laga maqlay daryanka hubka isugu jira midka culus iyo kan fudud kaas oo inta badan badankooda ay u fahmeen dadka shacabka weerar lagu qaaday hoteelada ku dhow geeyada diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan ama xarunta xalane ee magaalada Muqdisho daqiiqado yar kadib xilli xabadda aysan kala joogsi lahayn qof walbana dhagta u taagayo goobta ay noqon doonto ayay soo ifbaxday in halka la weeraray ay tahay hoyga uu Muqdisho ka degan yahay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kaas oo ku yaalo meel aan sida uga fogeyn garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa weerarka habeenkaas ku naf waayay dhammaan ilaaladii hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxayna ciidankii soo weeraray ee nisa ahaa ay xabsiga u taxaabeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur xilli uu dhaawac ahaa ilaa ugu dambeyn maxkamad la soo istaajiyay laguna waayay wax dambi ah oo ay jirtay in ay dawladdu qaadatay meydka askartii ilaalada u ahayd Master Warsame kuwaas oo kabahooda lagu aasay sida uu sheegay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xukuumadii xilligaas ee Xasan Cali Kheyre ayaa ka gaabsatay weerarkaas waxaana muuqatay in la qarinayay mas'uulka sida tooska ah uga dambeeyay weerarkaas iyo qorshaha uu ka lahaa waxayna wax walba u muuqdo in aysan u dhicin sidii la rabay oo ahayd in la qaarijiyo Master Warsame haddaba yuu ahaa mas'uulka bixiyay amarka lagu weeraray hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kuma uu ahaa sargaalkii fuliyay weerarkaas muxuu ahaa qorshaha weerarka waxaa amarka weerarkaas lagu qaaday hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur bixiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre wuxuuna qorshaha Kheyre u ahaa in la qaarijiyo Cabdiraxmaan kaas oo ay xukuumaddiisa u aragtay caqabad hortaagan Kheyre oo aaladda WhatsApp-ka kula hadlayay taliye xigeenkii hore ee Nisa Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa ku amray in uu fuliyo weerarkaas una dhameeyo Cabdiraxmaan hadalladii ay isdhaafsadeen waxaa ka mid ahaa Kheyre ayaa qoraalkiisa ku yiri hawsha maanta yeesan kula dhaafin saadaq aad ha ugu halaynin adiga ayaa laga rabaa in aad hawsha dhameysid qofna hala wadaagin ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre oo sugu waayay jawaabta Jaamac ayaa wacay una ka qaban waayay sida idinkaga muuqato sheekadooda balse taliye Jaamac ayaa u soo jawaabay wuxuuna u soo qoray raali noqo mudan ra'iisul wasaare hawshii ayaan ku mashquulsanahay ciidankiina waa diyaar mana oga shaqada ay u socdaan anigana haddaan sii baxa Kheyre ayaa intaa kadib wacay taliye Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac balse uu ka qaban waayay wuxuuna Kheyre u qoray ninka mar dambe yaanan arkin ha loo dhameeyo wixii ka imaado aniga xalinayo habaqin qolada aad diraysana habar gidir yeesan ku jirin taliye Cabdulqaadir ayaa isna u soo qoray hoteelka in ay naqashqashaadaan ka baqa maxaa sameeya Kheyre ayaa haddana u qoray adiga iyo Sacdiye xaliya hawshaas wixii dukumiintiyo iyo kombiyuutaro oo shaqada ha ka soo tagina iyo wixii warqadaha mooshinka ah taliye ku-xigeenkii hore ee Nisa ayaa Kheyre u soo qoray okay hadda sahankii ayaa kor joogo asagiina waxaa la joogo Faarax Cabdulqaadir iyo Odowaa intay ka soo baxayaan ayaan sugaynaa wicitaano tiro 3 jeer ah ayuu sameeyay Kheyre oo sida muuqato daneynayay dadajinta weerarka habeenkaas wuxuuna taliye Cabdulqaadir oo aan ka qaban u soo qoray hawsha hadda ayay bilaabanaysaa anigana waan u dhowahay Kheyre ayaa u qoray good wicitaan kadib Kheyre ayaa u qoray taliyaha good job talka qofnaha ka qaban kama waramo dheh qofkii ku weydiiyo qoraalkan oo saacad ahaan ku beegan xilliga weerarka kaas oo ka dhigan in markaan uu bilowday weerarka balse rasaastu bilaabatay isfaham waa iyo shaki uu ka dhashay ilaalada Cabdiraxmaan oo waqti qaatay kadib lambarka ka muuqdo shaashada amarkana laga bixinayo waa lambarka Xasan Cali Kheyre uu ku isticmaalo aaladda WhatsApp-ka dadka dhanna ay ku yaqaanaan weerarka kadib Master Warsame ayaa helay xog ah in qorshaha weerarka u ahaa mid lagu qaarijin rabay isaga kuna eedeeyay mas'uuliyiinta ugu sareeya ee dalka Kheyre ayaa raaligelin ugu tagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hoyga Muqdisho uu ka degan yahay wuxuuna u sheegay in qaladku ahaa mid isaga ka dhacay qalad la galana bini aadam loo yahay haddana diyaar u yahay in uu ka garaabo waxaana warar hoose ku helnay sheegaya in Kheyre uu dafiray
in weerarkaasi uu ahaa mid lagu doonayo in lagu qaarijiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Raaligelintan oo u muuqato mid ay dani gadaal ka riixayso ee Kheyre ayaa ku timid kadib markii lagu wargeliyay in uusan ka qaybgali karin shirkii midowga murashaxiinta oo maalintii Sabtida uga furmay magaalada Muqdisho.